kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada Nawaal Show iyo barnaamijyadeennii aad igala socoteen Nawaal Qurux Channel YouTube-kayga. Asxaabay like iyo share ku dadaalaya. maanta waxaan idin wadaa qiso oo aad iyo aad horta u xanuun badan oo ka dhacday wadankan Britain UK aan ku noolnahay. qisadaas oo maaragtay aad iyo aad u naxdin badneed. waxaa dhacay gabar 27 jir ah oo wadankan UK degan ayaa waxay dhashay 4 caruur ah, 4 wiil maxaan ku dhahay mataana ah, 2 mataana waaye, 2 kalena waa mataano. caruurtan waa ciyaal ka yar 5 sano caruuran gaarin. mataanaha qaar midna waa 4 jir midna waa waaye 3 jir. midna laba mataanaha waa 3 jir, labana waa 4 jir. intoodana waa 4 mataanaha waxay ahaayeen 4 wiil. gabadha waxay jirtay 27 jir, qabska dhalinyaro ay ahayd. gurigay ku xirtay habeenkii markuu ahaay 6:00 wiigan hadda aan ku jirna dhexdiisa maalinta Jimcaha. markay caruurtii guriga kaligood joogaan ee uga tagtay ayaa waxaa dhacay dab guriga ka qarxay. dabkii markuu qarxay ay caruurtii meesha ku dhintaan. dad markeena u waceen kuwa damiska u waceen dariska iyo waxaas u waceen caruurtii. markii waxaa la arkay nafta kusii dab yar tahay isbitaalka loola cararay. yacni caruurtii markii dambana isbitaalka ku geeriyoodan 4toodiba 4 wiil oo sida aragtaan hadda ka aragtaan sawirka meesha saaran, caruur yar yar aad qurux badan. wallaahi horta arrin aad iyo aad gabadha ajnabi waaye, laakiin waa qof bini'aadan ah. waxyaabahaas camalna qof walba ku dhici karaa. waxaa qisadaas markaan fiirsaday waxaan soo xasuustay qisooyin badan oo Soomaalida aan ka dhex arko. marka dhowr jeer aan xasuustaa gabar dariskeyga 4 caruura guriga inta ku xirto caanaan soo iibsanayay. waan degtay gurigaan ka tagay. guryaha falaadyadana waa iska taqaanaa London dheer cunugiya guriga lagu xiraa wax kasta. cunugu ilmo yara hadda guriga lagu xiray kaligooda oo 5 sano ka yar wuxuu sameyn karaa, jikadu geli karaa, dabuushidi karaa, waxyaabo badan u sameyn karaa. marka wallaahi waa arrin aad iyo aad maaragtay u dhib badan. ilmo maxaa lagu tilmaamaa horta wadankan aan ku noolnahay qurbaha, khaasatan wadanka UK. caruurta waxaa laga bilaabaa cunug waxaa la yiraahdaa ciyaal markii 18 sano iyo wixii ka yar. wixii yar cunug yaroo dhowr bilooda ama umushaba ilaa 18 sano waa iska waxaa lagu tilmaamaa ciyaal caruur. marka qafkii haddii uu uga tago caruurtii cunug yara ka yar 18 sano dhibaatana guriga ku gaarto, qafkaas waxaa lagu tilmaamaa qaf oo yacni dambiga lagu soo qaadanayo waa child neglect waxa la dhahay waa lagu soo qaataa wadankan. ilaa gabadhi hadda waa la qabtay, qisadeeda aan idin waday. gabadhi waa la xiray, haddana waxa lagu soo deeyay si damiina beel wax la dhahay damiina baa lagu soo deeyay. yacni markii hadda wax fasax yar baa lagu jiraa. waxaa ka akhriyay newska gabadhaasi in ay markii January la gaaro maxkamadda dib loogu soo celin doono. gabadha maxaa dhibaatooyinka noocaasa oo qurbaha aad Soomaalida horta ku badan yihiin. alxamdulillah horta wax dhibaato u weyn oo maanta wax weyn oo sida camal 4 cunug 5 cunug la saga tago Soomaaliya dhawaan ma maqlin, laakiin Ilaahay naga badbaadiya. waxaan maqlaa qisooyinka aad noogu bata waxa waaye cunugi ilmiha guriga looga tagaya waa lagu xiraaya, koraa loogu xiraaya. hadda aankee la dhihi karaa guriga ilmiha hadda dabka ka aankee haddii la dhaha war albaabka wuu furan yahay iska soo baxa
waxyaabo qeyro mas'uulnimada aad iyo aad u weyn waaye in canug yar oo 5 sano jiro ama inta yarba guriga inta loogu tago kaliga soo noqonaya ama maxaan ku dhahay iska sii joogo dhowr saac laga tago aad iyo aad dhibaatooyinkaasna waxaa ugu badan hooyooyinka kaligood qurbaha ku nool aan haysanin wax oo maaragtay ehel iyo arxan aan ka agdhaweyn badana arrimahaas ay saameysaa waan aniga dhowr jeer aan arkay ama maqlay gabar dhahaysa gurigaan caruurta ugu tagay ciyaalkii markaa fiirisin ciyaal aan ahayn 10 jir aan ka dhameen qisada ka hor gabar iga sheekeynaysay gabar baa inta caruur inuu 10 sano jiro guriga uga tagtay haddana ka dhooftay xanugi waaba ka dhooftay ba ilmi dadkii deriskii la soo wacay leedahay blaayo isi samee cunuga ii samee blaayo iigu tag blaayo saa u samee wallaahi wax aad iyo aad qofka nooca sameeyna horta waa wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa horta in la ogaado la dhaho qofkani maxaa ka qaldan maxaa jiro qofkan ma qafiyoba marka waxa wallaahi ina horta waxaa wanaagsan ani tala ahaan Soomaalida gabdhaha dhiban wax kasto ka maqan iska subax iskuulka aan ka hadaaratay leydka ilmaha iskuulka leyd tagaan sheeg waa soo daahanay waxba naga qaldama leydka ma cunug ma dilaayo laakiin hadaa cunuga guriga uga tagtid oo isdhahdid alle ilahay bari waxaas ka maqan soo qaado soo gado wax kasta dhici kara guriyahana qurbaha lagu nool yahay gaas baa heat baa leenahay gaaskii iska kici kara iska qarxi kara anuga dabka wax saari kara caruurtii dabka jikada galaya wax bay shidaya waxyaabahaas oo dhan dabay kicin karaan waxa aad iyo aad horta muhiim u ah aabayaashan horta waxay ku leeyihiin fal weyn ku leeyihiin qeyro mas'uulnimada ugu weyn waa taa inay caruurtii iyo hooyada isku dayacaan ciyaalka hadda odagii uu shaqeynayo oo guriga ka maqan yahay markuu soo noqdo alaabtaas soo iibiyo waa wax macquul ah laakiin hadii odagii gabadhi ka maqan yahay kala tageen maasha Allah waxa horta aad iyo aad muhiim ah in maaragtay hadduu caruurtiisa gabadhii furay inuu caruurtii furay ma aha waa inuu ka warqaba caruurtaas saa mas'uulka diin iyo maxaan ku dhahay iyo wadanka sharcigiisa waa saa mas'uulka maxaa idin ka maqan maxaa idin sameeyaa maxaa wiigi hal mar hadduu wax u soo hagaajiyo caruurtii dhibaatadan gabadhi way ka baahidan taala isku xaniban tahay way ka yeeraanaysaa waxay noqonaysaa inay isku filnaato ay haysato caawinaad marka ma dhibaatada weyn oo keenaysa wallaahi run ahaantii waa taa in maaragtay gabadhi lagu dayaco caruurta oo ninkii iska dhaqaajiya gabadhi kaligeed soo harta ayadana markaas ay tidhaahdo maskaxiyan horta qofkii ilma caruura guri inta ku xiro kaligood ka tagayo qofkaasi maskaxiyiintiisa inuu is ogaado horta qof normal ah horta ma aha cunug 10 sano ka yar guri lagu xiro dhaha gurigaas oo ku soo noqonayo intaan sameynaya xoogaa waxa waaye wadamada qurbahana lagu nool yahay oo daris intuu cunug u soo galo si ogaanay sida Soomaaliya camal horto waxa waaye dariskii caruurta kula haynayaba laakiin wadamadan aba ogeyn qofka dariskaada wuxuu yahayba ogeyn waxa laga yaabaa gurigaas waxa galaynaadan ogeyn wuxuu yahay wax sii galay wax soo baxaya war u haynin waxa qisadaasaan ramay damca inaan la wadaago oo maxaan ku dhahay aad xoogaa qalbigayga aad u qaaday wallaahi run ahaantii gabadhin kasta gabar ajnabi iska tahay kastil waa gabar maxaan ku dhahay qabli aadana oo dhibaato ay gaartay dhibaatadaasna way gaari kartaa gabdhaha Soomaalida oo falka noocaas ku dhaqmaayeen ay caruurta guriga ku xiraan ka tagaan
marka daawadayaal qisadaas saadka idinla soo oo maxaan ku dhahaye xun oo dhibaatada idinla soo wadaagay, waxaan isdhahay bal la share garee videogana, share iyo like iyo subscribe ku dadaala. intaan videoyaal kale iga helaysaan aniga oo Nabaal Qurax waxaan idinkaga tagay sidaa ay nabadgeliyo, like iyo share. Assalaamu calaykum.